السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال وعن أو وناكسن ميل البوء جوكتان كنا سو دوادا وركي رويال تي في أن حلقاني ستة صديقة سو قد بنيو استوديوها إنو كلين هاي قلبيت كمقالة لندن أنكو بلابي مناسبة لغو سو بندقية وحقبت كي سند كي تغي مامولك قبل كبنادر أيا حبينا مدي حاليها لغو غبتي مقالة مقدشة عاصمة دالك الصومالية وحانا مناسبة داسي كهالي قدوميها قبل كبنادر مدونة ترسن وعرفك كو أدكيه وحيابيه حوغناء مامولك قبل كبنادر أقب صومي سند كي تغي وحانا مناسبة داسي كسو قيبها كلا دوان بلشده كل غن مقالة مقدشة كين عمر مكران وريها يجا كسوغان مقالة مقدشة أيا وربحين تاسي كسو درتي مقالة مقدشة munaasabadan oo lagu qabtay degmada warta nabad ee gobolka Banaadir ayaa waxa looga hadlayay waxqabadkii sanadka ay soo macsalaameynay 2013 oo ku guuleystay maamulka gobolka Banaadir waxaana munaasabadaasi lagu soo bandhigay waxqabadkii maamulka gobolka Banaadir uu ka sameeyay horumaradii uu ka gaaray dhinaca nabadgelyada nadaafadda iyo waliba dib u dhiska dalka gaar ahaan magaalada Muqdisho gudoomiyaha degmada warta nabad oo munaasabada maanta degmada ay gudoomiyaha ka taal ugu qabtay ayaa ugu horeen waxay faahfaahin ka bixisay maamulka gobolka Banaadir gaar ahaan degmada ay gudoomiyaha ka tahay horumarkii ay gaartay anaga warta nabad hadanahay tarsan waa ka bedelnay maanta ifiyaha gobolka Banaadir aan u bixin sababta qofka markuu wax qabto in wax la siiyo muhiim ah laakiin waa mahadsantahay xitaa qofka dhiirigelinaya waane magaaladan loogama baran qof wax qabto in la dhaho waa mahadsantahay laakiin ka degmo ahaan iyo maamul ahaan iyo shacabkeena waa mahadsantahay kuleena gudoomiye dadka gobolka Banaadir waxaa la rabaa qofku wax qabto in la garab istaago garabkiisa la buuxiyo xan iyo dhibaato iyo isnaceeb waa ku soo daalnay wax waa qabanayna maanta ilaaha tarsan noo keenay 2010 ilaahay noo keenay wax badan magaaladan iska bedelay wadooyinkii la dhisay nal caawiya xiran weyn oo guryaha iridooda aan ku xiran weyn maanta soo la marayna marka magaaladan dib yaa loo celin gobolka Banaadir wuu shaqeeyay hadii dadka gobolka Banaadir ay garab istaagaana gudoomiyaha wuxuu helay iyo ku xigeenadiisa iyo xogayaha iyo dhamaan maamulka annaga naga sareeyo dhan dhiirigelinayaan gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Maxamuud Axmed Nuur Taarsan ayaa isna sidoo kale khudbad uu ka jeediyay munaasabadii ka dhaceysay warta nabad waxa uu uga hadlay waxqabadkii sanadkii tagay sidoo kale Taarsan ayaa tacsi u diray dadkii waxyeelada ay ka soo gaartay qaraxii xalay Muqdisho ka dhacay sida lagu sameyn karana waxa weeye in fursado la abuuro fursadahaasna sida ugu horeysa la abuuri karo waxa weeye jidadka in la dhiso jidadka marka la dhiso dukaamaha samaysmahaya baabuurtii dekada ka soo baxday si smooth ayagoon gadoomin hadda haddaan dhahno qorooyinka iskaashatada baabuurta haddaan dhahno jidadka waxay sameeyeen dekeday ka soo rari xadaaf bay u soo rari markaasuu meel ku gadoomi markaasay baabuur kala soo kirayni markaasay ku rari markaasuu haddana meel kale ku gadoomi markaasay baabuur kala soo kirayni markaasay ku rari markaasay haddana meel kale ku gadoomi 4 jeer buu gadoomi bakaaraha iyo dekadu wuxuu u soconay 4 saacadood u soconaya maxaa ku dhigay waqtigu waa lacag haddaan dhahno marka war maalintii shaqadaad shaqaynaysiin $1 nin kasta oo maaragtay iskaashatada ka tirsan $1 wargudoomiyaha iskaashatada jooga haddana u sheeg $1 maalintii $1 jidadka lagu dhiso waa $1 jidadka lagu dhisi adna waxaad ka badbaadaysaa baabuurta ka gadoomayso ku raraysid $1 maalin kasta account ku shub male degmooyinka gobolka Banaadir qaarkood ayaa waxa ay sameeysanayaan munaasabada ay uga hadlayaan sanadkii laga soo gudbay waxqabadkooda iyadoo sanadkii 2013 kana maamulka Banaadir uu ku guuleystay in dib uu soo celiyo bilicdii magaalada Muqdisho ka dhuntay muddo 20 sano ka hor Kiin Cumar Makaraan Royal TV Muqdisho.